qofku qadaa xawaa'ij الناس baa kamida dadka xaajaadkooda qofka bini'aadamka inuu isku dayo inuu wax ka qabto qof baa guuray inaad rarto qof baa tala kaaga baahan qof baa waxyaalaad kaga fiicantay kaaga wanaagsan qof baa aayad ku weydiinaya qof baa yani dadku qofka bini'aadamka inuu dadka waxyaalaha ay uga baahan yihiin inuu wax kala qabto taa laftirkeeda walaalahay muhiim weeyaan inuu qofku ka shaqaysto taa laftirkeeda waa muhiim nabigu calayhi salaatu wasalaam qof dumara wadada bartikeeda taajisay dan baan kaa leeyahay bay ku tiri wadooyinka ama wacyada kaa doontay istaag buu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam kugu yimaado waxaad dantaada aan ku qabtay sikadooyinka waa wadooyinka waa wadiiqooyinka yaryar mid ka mid ay u istaagtay faqada xaajata xataa faraqat waa arrintiisa u dhameeyey xadiidka imaam axmed iyo muslim way soo wariyeen marka dadka inaad caawiso jaarka aad caawiso qofkii xanuunsanaya muxtaajka aad caawiso si gaara dadka maskaxda nafsiyan xanuunsanaya qurbaha la joogo dadku in badan oo isugeen baa maskaxiyan xanuunsanaya marka xitaa nafisayaan dhageysigaas aad dhageysanaysa baa dad badan runtii wuxuu ah inta qofku inuu taalabtageeda ku dadaalo walaalayaal waxaan hadalkay kusoo koobayaa aynu bal waqtigeena aynu ka faa'iidaysano qofkii in yar buu nool yahay intaa yar inuu qofku ka faa'iidaysto waqtigii waa ciriiri waxa weeyaan waqtigii baynu daba cararaynaa awal waqtigu isaga dadka daba carari jiray marka dadkii baa waqtigii daba cararaya waxa weeyaan waynu ordaynaa meel lagu cararayan garan maayo busy baa la leeyahay hebelo iska waran wallahi beriyan busy baanahay busygaas aad ugu jirtid baa qofna corona ku dhimanaya qofna accident ku dhimanaya qofna isrijiisa ku jiifa ku dhimanaya qofna mawtul qafla ku dhimanaya ilaahay nihayad khayr qabta Allah ka dhigo marka inaynu ku dadaalo inaynu barakaadka iyo khayrka ka shaqaysano hawaaga iyo shahawaadka iska ilaalino qofka bini'aadamka waqtigiisa uu ka ilaaliyo baalka telefoonka baalkaasi waxaweyaan dhibaatooyin fara badan buu dadka runtii ku hayaa sidii ugu wanaagsan aynu uga faa'iidaysano walaalayaal aynu iska ilaalino social media waxyaalaha aan faa'iidada lahayn waxa weeyaan waayo ilaahay baa waxaas oo kala xisaabtamaya dadkii waxay ku xisaabtamayaan hebel block bay saaray block baan saaraya online buu qofkaasi uu yahay comment baa la isu qorayaa waa la ignore gareeyay like baa la ii saaray waxa weeyaan messengerkii baa caynkan ku jira qofkaasana aad garaynaya qofkaasana refuse gareeyay waxaasaan delete gareeyay waxaasun baa laga sheekaysanaya war waxa aynu iska ilaalino oo khayraadkan aynu ka sheekayno qofka waqtigiisa ku lumiyo waqti gali oo laakiin dhinaca faa'iidada uu gali dad baa khayr ku jira dad baa dadka wacdiyaya dad baa dadka u faa'iideynaya dad baa dadka wax cusub sheegaya dad baa dadka cunto la kariyo u sheegaya waxyaalaha badan oo wanaagsan ay leedahay taasina way jirtaa wixii walaalayaal laakiin aan faa'iido lahayn ama caya ama waqtiga naga luminaya haynu wala social media iska ilaalino aad baa looga qayliyay aad bay culimadu uga qayliday yani waxa weeyaan inaynu social media haynu iska ilaalino runtii awal dadku raadiyoga way dhageysan jireen TV-gana wixii ka soo baxay way dhageysan jireen dadku khayr iyo nimco ku jireen waqtigooda ka faa'iideysan jireen dadkii imika social media baa soo baxay intaasoo qololo kala gaara magacyo kala gaara ay wada yeesheen dadkiina xoog yar iyo weyn roole iyo dhalinyar waa lagu wada jiraa oo wax weeye waa lagu wada mashquul yahay haddaba haddii lagu mashquulayo yaani kaa mashquulinin aakhiradaadii jannadaadi yaani kaa mashquulinin iyar baad noosha waad ka sii socotaa qabriga yaani kaa mashquulin oo aakhirada yaani kaa mashquulin oo adduunyadaada iyo dantada adduunyada ku wadatid yaani kaa mashquulin balance qofku banaadamku isku dayo hada jeer inuu sameeyo khayr kale uu ka faa'iideysto xumaanta iyo dhibaatooyinkan uu iska ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayrka hayna waafajiyo dhibaatooyinka Allah inaga badbaadiyo waxaynu jecel lahay oo dhan ilaahay subxaanahu wa ta'aala quluubteena ha geliyo oo haynoo fudaydiyo xanuunadaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga badbaadiyo hadda wax khayr ku hadlay fa min Allah wixii khaladay aan sheegayna waa xaggayga xagga shaydaanka wa aakhiru da'wana alxamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi amaan Allah